Assalaamu calaykum akhyaaray waxaad kusoo dhawaataan sheeko aad u xiiso badan. Sheeko intaan u guda galin ka hor waxaan idinka codsanayaa inaad channelka subscribe na dhahdaan, sheekada inaad like inoo saartaan. Wiilkan aad u jeedaan waxaa lagu magacaabaa Awin. Wuxuu ka shaqeeyaa beer uu leeyahay nin dooni ah welibana aad u xun. Awin waxa uu jeclaaday gabadha uu dhalay ninka uu shaqeeyo, balse waxa uu soo xasuusiyay inuu yahay qof faqiir ah uusan guursan karin gabadhaas. Waxa uu dareemay inay taas ay ku culus tahay, shaqadiisa ayuuna hore u sii watay. Ninkan loo shaqeeyo ee weliba dooniga ah waxa uu ahaa mid aad xaasid u ah. Waxa uu ku shaqaysan jiray dadka saacado aad u badan, welibana waxa uu sii jiray lacag yar oo aanan ku filnayn. Sidaas ay ahaataba, Awin waxa uu ahaa mid lacagtiisa yar ku sadaqaysta dadka waxa uu awoodo. Ugu dambeyntii waxa uu yimid ninkii lahaa dhulka welibana u shaqayn jiray. Wuxuu ku yiri, gabadhaada Jamiila ayaan ka helay, wayna qurux badan tahay, inaad ii guuriso ayaan rabaa. Ninkii waa uu xanaaqay, wuxuu ku yiri, gabadheeda quruxda badan uma qalantid, mana ku siinayo, ee iga tag, waxaa tahay qof faqiir ah. Haddii aad guursanaysid waxaan kaa rabaa inaad ii keentid lo' dahab ah welibana aad u weyn. Haddii aad intaas ii samaysid waan ku siinayaa gabadheeda. Wiilkii waxa uu dareemay inuusan waxaa keeni karin, weliba haddii uu shaqeeyo noloshiisa inta ka dhiman. Oo iska soo baxay isagoo murugaysan, waxauna soo aaday keymaha. Waxa uu cod ka maqlay geed korkiisa. Waxa uuba arkay tuka raba inuu xado ukun uu lahaa gorgor. Tukaha waxa uu isku dayayaa inuu bajiyo ukunta si uu u cuno. Waxauna ka faa'iidaysanayaa maqnaanshaha ukunta shimbirkii lahaa. Intaa kadib wiilkan ayaa dhagax soo qaatay, tukihii ayuuna ku dhuftay. Tukihii kadib waa uu cabsaday, waana uu argagaxay meeshan oo isaga tagay isagoo weliba ammaan siiyay ukuntii. Intaa kadib waxaa timid gorgorkii dhashay ukunta. Kadibna waxay u mahadcelisay wiilkan lagu magacaabo Awin, oo waxay ku tiri, waxaa tahay wiil wanaagsan, waxaan ii badbaadisay canugayga, waa inaan ku abaalmariyaa, welibana aan hadiyad aan ku siiyaa maadaama aad ii badbaadisay cunugayga. Kadibna waxa uu ku yiri, hadiyad ah? Haa, ay ku tiri, hoo dhagaxan qaado. Dhagaxan waa mid mucjiso ah, wax walbo aad niyeysatid waad helaysaa meel alaal meesha aad joogtid. Haye ayuu yiri. Kadibna waa uu macsalaamay isagoo faraxsan ayuuna ka soo tagay gorgorkii. Kadibna waxa uu yimid gurigiisa. Intaa kadib waxa uu bilaabay inuu wax niyeysto maadaama la weydiistay dibi dahab ah. Waxa uu yiri, waxaan niyeysanayaa dibi dahab ka samaysan. Kadibna dhagixii ayuu gacanta ku qabtay, isla markiiba waxa hortiisa yimid dibigii lo' ahaa welibana aad u weyn oo dahab isaga dhan ka samaysan. Kadibna waxa uu xaqiiqsaday in wax walbo uu niyeysto uu helayo. Haddana waxa uu niyeystay in gurigiisa foolxumada badan laga bedelo oo guri qurux badan loogu bedelo. Isla markiiba guri weyn oo aan inaba caadi ahayn ayaa loogu bedelay. Kadibna waxa uu xaqiiqsaday inuu wax walbo u baahan yahay uu heli karo. Waxa uuna bilaabay inuu u tago Jamiila aabaheed oo u shaqayn jiray, oo waxa uu yiri, waa kana dibigii waan kuu keenay ee gabadhaadiisii. Waxaa kaloo aan leeyahay gurigan aadka u weyn oo gurigaaga xitaa ka quruxda badan. Intaa kadib odaygii waa uu fikiray oo waxa uu is yiri, sidee wiilkan shalay faqiirka ahaa maanta uu ku yeeshay hantidan aad ku fara badan, sir ayaa ku jirta, waa inaan soo ogaadaa. Kadibna waxa uu yiri, okay wiil yahow, waan ku siinayaa gabadhayda, wayna kula noolaanaysaa. Gabadheeda quruxda badan waad u qalantaa maadaama shuruudihii aad ka soo baxday. Waayo ayuu yiri wiilkii, waa mahadsan tahay aabbo. Intaa kadib waxa uu soo diray gabadhiisa oo yiri, waan ku siiyay, saacadan laga bilaabana waa xaaskaaga. Ayadiina way u timid, waxayna bilaabeen inay isla noolaadaan. Ninkanse qorshe ayuu damacsan yahay, kama uusan harin wiilkan. Gabadhii waxay la joogtay wiilkan lagu magacaabo Awin muddo aad u dheer. Kadibna waxay bilaabeen inay isfahmaan. Awinna waxba kama uusan qarin jirin xaaskiisa. Waxay tiri, waxaan ku weydiinayaa inaad ii sheegto sida aad hal mar lacag badan aad ku heshay, welibana gurigan aad u dhisatay. Isagiina waa uu aaminsanaa xaaskiisa. Waxa uu tusay dhagaxii, wuxuuna u sheegay in wax walbo niyeysato ay helayso qofkii dhagaxan haysta. Kadibna waxay tiri, oo dhagaxan ma ii dhiibtid, xaaskaaga soo ma ihi, miyaad iga qarsanaysaa? Inaan wax kala qarsano miyaa jirta? Waan isqabnaa labadeena, waa inaan is aaminaa. Maya ayuu yiri, waxba kaama qarsanayo, xaaskayga ayaa tahay, waana ku aaminsanahay, oo dhagaxa inoo hayay ee inoo xafid. Waa uu dhiibay dhagaxii, welibana ayadoo faraxsan ayay ka qaaday. Waxay tiri, anaa noo xafidaya, ha ka walwalin. Maalintii dambe raashinka ayay waxay ugu dartay xoogaa yar oo sun ah oo suuxinaysa. Raashinka biyihii markii uu cabayba waxa uu dareemay wareer iyo madax xanuun. Kadibna waa uu suuxay. Ayadiina intaas ayayba rabtayoo aabaheed ayaa mar hore la soo dardaarmay. Wuxuuna ku yiri,
waxaan kugu darayaa ninkan lagu magacaabo Owen. Kadibna way diiday, waxay tiri maya, macquul maahan, sideen u guursanayaa wiil faqiir ah? Aabbo sidee wax wadaa, aniga ma guursanayo wiilkaas. Waa doodii soo dhex martay markii loo keenayay ninkan. Kadibna wuxuu ku yiri wiilkan soo uma jeedi inuu taajir noqday, sirta uu taajirka ku noqday aad inooga soo ogaanaysaa, kadibna waa nooga soo qaadaysaa, waxba ha ka cabsanin. Ayadiina way fikirtay, ha aabbo wax buu qarinayaa, waa runta, sir ayaana ka dambaysa taajirnimadiisa. Ha ayuu ku yiri orod u tag oo weliba wax uu qarinayo nooga soo ogow ee nooga soo qaad. Arrinkaas ay ku taagneed, ninkanna si daacadnimo ah uma aysan guursanin oo waxay rabtay inay qayaanto. Dhagaxiina way ka soo qaaday oo aabaheed ayay u keentay, wixii oo dhanna way u sheegtay. Kadibna dhagaxii ayuu ka qaaday gabadhiisana wuxuu ku yiri waxaad tahay gabar fiican, waadna i fahamtay, waan baraabaynaynaa ayuu yiri. Kadibna waxa uu niyeystay dahab aad u fara badan, welibana isla markiiba waa uu helay oo gurigiisa ayaaba dahab iyo qasnado kala duwan oo dahab looga soo buuxiyey. Lacag aad u fara badan ayuuna sidaas ku helay. Wiilkii intuu suuxsanaa ayay arrinkaas oo dhan dhaceen. Wax yar kadibna waa uu ka soo kacay isagoo weliba dareemay in la khayaanay oo xaaskiisa ayuu meel walba ka raadiyey. Jamiila ku aaway, Jamiila xaggee baad joogtaa, Jamiila intee baa gashay? Gurigooda ayuu ka soo doonay. Waxa uuna arkay dahab fara badan inuu guriga yaallo oo uusan horey u arki jirin. Waxa uu yimid Jamiila iyo aabaheed oo isla fadhiya. Kadibna wuxuu ku yiri maxaa idinku dhacay, dahabkan oo dhan xaggee baad ka keenteen? Idinma aanan ogeynine, ii sheega runta, maxaa samayseen? Dhagaxayga miyaad isticmaasheen? Runta hala ii sheego ayuu ku yiri, waan idin ciqaabi doonaa. Kadibna gabadhii ay ku qosashay, haa dhagaxaaga ayaan isticmaalnay. Waa u xanaaqay, wuxuuna yiri dhagaxayga hadda isiiya, gacantan iga soo geliya, uma qalantaan in laydinla heshiiyo idinka. Kadibna waxay ku yiraahdeen dhagaxan saacadan laga bilaabo anakaa iskale, adigana haddii aad qiilada badisid waardiyaha ayaan ku wacaynaa, waana lagu bixinayaa, haddii kale adiga iska bax. Waa uu niyad jabay, wax kale oo samayn karana ma jiraane. Waa iska baxay isagoo weliba aad u murugaysan. Siduu u socday ayuu haddana wuxuu ku yimid geedkii uu deganaa, gorgorkii uu u badbaadinayay ukunta. Isla markiiba gorgorkii ayaa u yimid, waxa uuna dareemay inay wax ka qaldan yihiin wiilkan Owen ah, welibana aad u murugaysan yahay. Maxaa kugu dhacay ku yiri oo sidaan oo dhan kaaga murjiyay, ii sheeg. Kadibna wuxuu u sheegay sheekadii qabsatay iyo sida loo khiyaanay. Kadib gorgorkii wax yar ayuu fikiray, wuxuuna ku yiri ha walwalin, wax baan kuu sheegayaa, kayntan dhexdeeda waxaa ku yaala darjiin yar oo ubaxyo kala duwan ay ka baxaan. Meeshaas tag, welibana wax baad ka ogaanaysaa, wixii ku anfaco ka soo qaado, waa talo. Kadibna wiilkii waa uu soo baxay isagoo weliba raadinaya wixii loo soo sheegay. Waxa uuna arkay wax ka yaabiyey oo wuxuu arkay laba ubax oo iftiimaya, mid waa guduud midna waa buluug. Labadoodu waxay laba ubax oo qurux badan. Ubax ayuu damcay inuu soo goosto, kan guduudan markii uu dhawaaday oo uu carfiyay hal mar ayaa wejigiisii oo dhan isbedelay oo nabaro gudgudan ayaa ka soo baxay. Alla, wejigayga maxaa ka qaldan, sidaan oo dhan maxaa la igu ciqaabaya ayuu ku qayliyay. Aad buu u ooyay. Intaa kadib wuxuu ku rogmaday ubaxii kale ee buluuga ahaa. Isagoo ubaxaas ku rogman ayaa hal mar u neefsaday, welibana caraftii ubaxa ayaa sanka ka gashay. Wejigiisiina waa isbedelay, waxa uu noqday weji nadiif ah. Intaa kadib wuxuu ogaaday midka guduudan inuu wejiga nabarada ka soo bixiyo, midka kale ee buluuga ahna uu nabarada ka baabi'iyo oo uu daawo u yahay. Kadibna waa uu soo qaaday labadii ubax isagoo weliba midkii guduudnaa ee nabarada dadka u keenayay uu ku beeray, welibana u dhigay albaabka guriga deganeed Jamiila iyo aabaheedba. Intaa kadib maxaa dhacay? Jamiila iyo aabaheed ayaa banaanka u soo baxay, welibana waxay arkeen ubaxii aadka u quruxda badnaa. Waxayna isiraadeen ubaxan iska carfsada, balse markii ay carfiyeen oo ay sanka u galay carftii ayaa wejigoodii dhan isbedelay. Nabaro badan ayaana ka soo baxay, cuncun ayuu ku hayaa iyo weliba walwal. Kareen walba ay awoodeen ayay isticmaaleen, balse waxba kama uusan tarin oo wejigoodii sidiisa ayuu ku ahaaday. Welibana dhagaxii ayay yiraahdeen waxaan niyeysanaynaa in wejigeena inoo fiicnaado, balse waxba way u fiicnaan waayeen. Way iska ooyeen ayagoo weliba aad u murugaysan oo isla banaankan uma bixi kartaan, dadka ayaa la yaabaya. Intaa kadib waxaa soo booqday wiilkii Owen ahaa. Way ku yiraahdeen wejigeena soo uma jeedid, dhibaatadan ayaana haysata, maxaa idinku dhacay ayuu ku yiri oo sidaan idin galay. Waxay u sheegeen inay wejiga sidaan uu ka noqday aysan garan laayihiin. Wuxuuna ku yiri waxaa idin haysta habaar ee dhagaxayga ii soo celiya, markaas inaad fiicnaataan ayaa laga yaabaa, anigana waa idin daaweynayaa, ee dhagaxayga farta iga saara,
intaa kadib ayaan wax idiin qabanayaa, haddii kale ha ila hadlina oo meeshiina iska jooga. Kadibna waxay yiraahdeen wajigeena inoo fiicnaadaan rabnaa, adigana naga raali noqo, waan kugu khaldoomnay, hoo dhagaxaaga dhoonanimaana dishay, sidaas daraaddeed ayaan kugu dhacnay wiilyahow miskiinka ah, balse wejigeena wax nooga muhiimsan ma jiro ee dhagaxaaga qaado. Dhagaxii ayuu qaatay, waxauna u keenay ubaxii buluugga ahaa, kaasoo markaad ursatid ama aad carabsatid uu wejiga isbedelayo. Intaa kadib wuxuu ku yiri hooda ubaxan isagaa daawo u ah. Ubaxii ayay sanka la raaceen ayagoo weliba hawo kasoo jiitay, isla markiiba wejigoodii wuxuu kusoo noqday sidii caadiga ahaa oo weji qurux badan oo aanan cuncun lahayn ayuu u noqday. Ugu dambeyntiina way heshiiyeen Jamiila iyo ninkeedii Owen iyo weliba aabihii xumaa, waxayna ku heshiiyeen inaysan iskhiyaanin, welibana ay si daacadnimo iskula dhaqmaan. Aabihiin intaa kadib waxa uu noqday qof wanaagsan oo aanan dadka dulmiyin, xaqoodana aanan qaadanin. Wiilkii isagana waxa uu ahaa mid weliba si wanaagsan u shaqaysta, welibana hanti fara badan ayuu yeeshay. Isagii xaaskiisana waxay noqdeen kuwa dadka caawiya masaakiinta ah oo weliba lacag ku sadaqaysta. Waad ku mahadsantahay haddii aad ilaa halkan inala soo gaartay. Waxaan ku xasuusinayaa inaad like inoo saarto oo aad channelkaad kusoo biirto adigoo subscribe dhahanaya. Haddii aad horey ugu soo biirtayna aad baad u mahadsantahay. Su-aasheena maanta waa su-aal diini ah. Waxaad sheegtaa nebigii aabba la'aanta ahaa welibana lahaa keliya hooyo. Nebigaas ayaa laga rabaa calayhi salaam inaad kusoo qortid qaybta commentiga. Mahadsanid.